haddana waxaanu aragnay meeshii ugu dambeysay geed hoostiis oo ku cunay ilmaha gacan uu cunay meesha goonka ah uu goostay ay ahayd abaara 5 iyo bar duhurnimo ayaa waxa la ii soo wacay ilma 5 jir ah oo ka dhumay magaalada Gaalkacyo ka soo dhumay xaafadda Hormar ilmahaas waxa weeye ilaa habeen hore iyo waa la raadinay reportsina waa haynay marka dad soo arkay oo shalayto markii la naadinayay telefoonada qortay baa ilmaha meydkiisii noogu yeeray waa tagnay saligaan ka tagnay meeshii baan tagnay goobtii dambigu ka dhacay baan tagnay waxaan soo xaqiijinay ilmahaas in ruwa cunay waxaan aragnay goobtii ugu horeysay oo ku qabsaday madaxa meeshu macnaha kaga qaniinay oo timihii iyo ku raftay waxaan kala aragnay goobtii labaad oo caloosha magaranaysaa uu ku dhigay oo meeshaas waxa weeye dhiigii tira badan iyo waxba yaalay haddana waxaanu aragnay meeshii ugu dambeysay geed hoostiis oo ku cunay ilmaha gacan uu cunay meesha goonka ah uu goostay ruwaaga raadkiisii iyo ilmaha iyo meesha isku bariiqayeen iyo wixii dhan kulli waa soo aragnay markaas ka bacdi baan waxaan la xiriiray CID-da horta markii koobaad CID-da la xiriiray aniga oo aan tagin goobta amar baa waxa la ii siiyay buuxa CID gobolku waa wada shaqeynaa anigu taliye saldhiga waxaan ahay Booqad waxaan ka tirsanahay macna taliska qaybta gobolka Mudug marka amar bay ii siiyeen inaan u tago markii amarka la ii siiyay waan u tagay meeshii intii goobood oo baalkaas kula raftay ilmahaas waa u tagnay waa soo sawirnay salibkiisa kaliib baan ka soo tuurnay taliska qaybta iyo CID-da waa u dirnay marka waxaan wacnay qoladan garanaysaa gurmadka degdega ah dadku sibay nooga yara daaheen markii dambena waxaa yimid wiilka adeerkiis oo gaari xaabsada wata oo report ku soo gaaray waa ku wareejinay meydkii baan saarnay waxaan la geynay isbitaalka markaas ka bacdi CID-du waxa weeyaan uu shaqo iska lahayd waan ka soo laabtay waxay yiraahdeen amar bay siiyeen isaga laabo inta kaliya maradii macnaha ay dadkii la helay eheladiisi wiilkaas waxaan cadeynayaa in aan bahal mooye wax kale uu soo cunin oo bilaadan taaban oo kaliyaha iyo waxa suuqa la gelinayo wax ka jira aysan jirin arintaas ana xaqiijinaya waxaan u nahay anagu shacabka qareen baan u nahay dambulusnahay ma ogolin wax ma garanaysaa shacabka soo gaarayo dhibaato ah waxaan halka ugu gurmanay oo halka u tagnay shaqadayadii bay ahayd baanu qabsanay dadka shacabka ana inaan u qareerno xaq baan u leenahay hadii wax ka jiraana waxa weeye ma aan ka tagnin dhagaxa la saari lahaa waan naqaanaa sharciga waa la isugu imaan lahaa waxaan ku wareejinay adeerkiisna warbaahintaas siin doonaa lambarkiisa wayna la xiriiri doonaan arintaas sidaas ay u dhacday wabillahi tawfiiq taliye ilaa intee ehelku iyo ilmuhu ka maqnaa maadaama ay la soo xiriireen ilaa intee uu ka maqnaa xageesa magaalada dhankeesa magaalada laga helay ilmaha midkiisa ilmaha aniga warkiisu wuxuu soo gaaray aniga waqtigii maanta soo gaaray laakiin ilmo wax badan buu qaa marka meesha baalku ku falaajinayna xalay ma ahan habeen hore weeye waxa weeye marka maanta aniga reportkiisa soo gaaray ayaguna waxay sheegayeen macnaha ilmahaas ilaa daraad inuu maqnaa habowna ahaa meeshaasna uu baalku habeen hore ku helay xaqiijinteedina intaas weeyaan xaqiijiyay dhankee way Gaalkacyo markii ay fiirisid dhanka ilmuhu baalku cunay oo ka soo qaadeen masaaka meesha ilmuhu baalku cunay waxa weeye jaamacadda bariga Afrika iyo waxay u dhaxaysaa hotelka in Alitar ee SBU-da ay degan tahay waliba waxay u dhowdahay jaamacadda ehelkii ma ku qanceen in bahal cunay oo maadaama adeerkii ilmaha la soo qaaday ma ku qanceen markii aad arintii uga warranteen ehelkii waa ku qanceen adeerkiisna waa ku qancay hooyadiisna Gaalkacyo joogtay isbitaalka ugu imaanay sidaan ku ballanay ka bacdina ilmihii dadkii inay xawaasheen baan filayaa waana la isla ogyahay wax ma garanaysaa dhibaato ah oo ka jiray arintaasi ma jirin sidaas aan u xaqiijin waxa uu baaqaysaa warbaahinta qaybadeeda kala duwan dadka leh ilmaha bahal ma cunin iyo dhibaatooyin kale loo geystay iyo dad wax qarshaad jooga maxaad ugu baaqaysaa ayaga dadka social media soo dhigaya waxyaalaha khaldan waxaan leeyahay ilaahay ka baqa iska daaya waxyaalahaas walaalayaalow wax wanaagsan macnaha baana la soo dhigaa warbaahinta arintaasna wax ka jira ma jiraan hana u noqonina mar dambe ayaan ugu baaqaya dadkaas